Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta qiimiga badan kusoo dhawaada channelkeena dhiirigelin naftaada fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe saar channelka like gare muuqaalka u share gare asxaabtaada haddaa hore inagula joogtay muuqaalka like saar waa inuu dhiirigelin commentina kasoo bixi fikirkaaga waa inuu muhiim muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa dhibaatada uu leeyahay dhafarka waxaan ku baran doonaa afarta sababood ugu weyn aadan seexan karin habeenkii oo dhan ayaan ku baran doonaa muuqaalkan kow waxay noqon kartaa da'daada waxaan ku aragnaa hurdo kala go'ah dadka waaweyn inkastoo ay tahay inaan si toos ah u eedeyn soo jeedka joogtada ah ee dadka da'da waaweyn ayuu yidhi Dr. Suzanne British oo ah kaaliyaha professorka caafimaadka ee Harvard Medical School mararka qaarkood dadku waaweyn waxay ogaadaan in ay toosaan subaxa hore markay dareemaan inay hurdaan laakiin taasi inta badan waxay ka tarjumaysaa jadwalkaaga hurdada iyo soo jeedka ee ma ahan hurdo carqaladaysan laxanka wareegaaga ama wareegga hurdada waxaa laga yaabaa inay si aad isku bedesho markaad weyn tahay taasoo kugu keenaysa hurdo hore marka 9 fiidnimo hadday tahay bilowga hurdadaada habeenkii marka waqtigaaga toosinta dabiiciga ah wuxuu noqon karaa agagaarka 5 subaxnimo hurdadaada waa inaysan ka yaraanin 8 saacadood waxaa laga xigtay Dr. British labo mid ka mid ah sababaha caadiga ah ee hurdo la'aanta ayaa ah qaab nololeedka oo ay ku jiraan mid ka mid ah caadooyinka soo socda cabitaanka qamriga 4 saacadood gudahood waqtiga jiifka joojinta walxahaas ayaa laga yaabaa inay kaa caawiso inaad seexato laakiin haddaad isticmaasho sidoo kale waxay kaa joojin kartaa hurdada habeenka dambe sidoo kale waxay sababi kartaa aaditaan badan oo musqusha ah wax ku dhibi kara dhowr saacadood gudahood waqtiga jiifka la jiifsiga calool buuxda waxay kor u qaadi kartaa laabjeex taas oo adkeynaysa inaad seexato hurdada aadka u badan ama hurdada dheer ee galabtii la seexdo waxay adkeynaysaa in aad seexato habeenkii isticmaalka kafeyga aadka u badan kafeyga shaaxa iyo soodhada waxay xanibaysaa kiimika maskaxda ah oo loo yaqaano adenosine oo kaa caawinaysa inaad seexato isticmaal cuntooyinka iyo cabitaanada ay ku jirto kafeyga wixii ka dambeeya galbihii Dr. British ayaa sheegay in bedelidda caadooyinka ay kaa caawin karaan hoos u dhaca hurdo la'aanta mararka qaarkood si dhaqsi ah 3 waxay noqon kartaa daawadaada daawooyinka qaar waxay sababi karaan soo jeed habeenkii tusaalooyin waxaa ka mid ah qaar ka mid ah daawooyinka niyad jabka beta blockers si loo daweeyo dhiigkarka daawooyinka qabow ee ay ku jirto alcoholada corticosteroids si loo daweeyo caabuqa ama neefta Dr. British wuxuu ku talinayaa inaad weydiiso dhakhtarkaaga haddii daawadu ay tahay mid xilli dambe aad qaadanayso iyo haddii ay jirto waqti ka duwan maalinta aad qaadato ama in ay ku jirto daroogo kale oo aan carqaladeyn doonin hurdadaada 4 waxay noqon kartaa xaalad hoose dhibaatooyinka caafimadeed ayaa ku diidi kara hurdo fiican kuwana waa qaar ka mid ah kuwa ugu caansan uguna da'da weyn hurdo la'aanta walaaca niyad jabka walwalka iyo walbahaarka ayaa kugu adkeynaya inaad seexato qanjirka prostate oo weyn benign prostatic hyperplasia ama loo soo gaabiyo BPH dareenka faaruqinta kaadiheysta waxay dib ku keentaa ragga qaba BPH habeenkii oo dhan xanuunka joogtada ah way kugu adkeynaysaa inaad seexato waana wada laba geesood ah hurdo la'aantu waxay kuu sii kordhin kartaa xanuunkaaga neuropathy xanuunka gacmaha iyo cagaha ayaa waxay sababi kartaa soo jeed joogto ah apnea ama lagu macneeyo quurada hurdada habeenkii ayaa laga yaabaa inay calaamad u tahay inaad qabtid quuro dheer taasoo keenta ama hakad kooban ku samaysa neefsiga hurdadaada taasoo ku horseedi karta inaad maalintii hurdo ugu dambeyn asxaabta qiimiga badan waxaan filayaa muuqaalkan inaad wax un ka faa'iiday haddii aad muuqaalka ka heshay like iyo comment ha ka hagrin waa inuu muuqaalkan muuqaalka xiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu